السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkaad naga daawanaysid waa Amno Official. fadlan channelka haddii aad ku cusub tahay subscribe sar si ay kuu soo gaaraan muuqaalada xiga. Muuqaalkan waxaan kaga sheekeynaynaa sida loo xalliyo khilaafka shaqaalaha. Khilaafka shaqaaluhu wuxuu saameyn karaa wax soo saarka, maskaxda shaqaalaha iyo jawiga guud ee shaqada. Maxay muhiim u tahay in la xalliyo khilaafka shaqaalaha? Xalinta isku dhaca waxay u ogolaataa xubnaha kooxda inay si wax ku ool ah u wada xiriiraan oo ay noqdaan kuwo wax soo saar badan, iyadoo khilaafku uu abuuri karo caqabado ku meel gaar ah oo u dhexeeya shaqaalaha dhexdooda ama shaqaalaha iyo maamulayaasha. Marka aad xaliso khilaafaadka, waxaad dhab ahaantii xoojin kartaa cilaaqaadka oo aad abuuri kartaa jawi shaqo oo xitaa iswaafaqsan. Xalinta isku dhacyadu waxay ogolaan kartaa wada shaqayn weyn oo dhex mara xubnaha kooxda, taas oo horseedi karta hal abuur badan. Sidee loo xalliyaa isku dhaca shaqaalaha? 1. Fahamka khilaafka. Ka bilow inaad fahamto nooca isku dhaca. Qiimee qaabka wax ay u dhaceen iyo sababaha keenay. Ahoona qof meel fog wax ka qiimeeya. Ha ku degdegin go'aan. Fahamka arrimaha hoose waxay kaa caawin kartaa inaad xaliso arrinta hadda taagan iyo sidoo kale inaad iska ilaaliso soo noqnoqshada mustaqbalka. 2. Dhiirigelinta wada xiriir furan. Iyadoo ku xidhan nooca iyo halista ay arrintu tahay, waxaa laga yaabaa inaad soo jeediso in shaqaaluhu ay arrinta laftooda ka shaqeeyaan oo ay dhexdooda isxaliyaan. Ku dhiirigeli inay ka wada shaqeeyaan sidii arrinta loo xalin lahaa, iyadoo la dhageysanayo aragtida qofka kale isla markaana la soo saaro go'aan wadajir ah. 3. Ka qaybgal xalka. Haddii shaqaaluhu ay dhexdooda xal keeni waayaan ama ay isxalin waayaan, markaas waa inaad soo dhaxgasho ka hor inta aanu khilaafku saameyn dadka kale ee goobta shaqada. Hubi in dhammaan dhinacyada ku lugta leh ay fahmaan in lagula xisaabtami doono falalkooda, ayadoo lala tiigsanayo anshaxa shaqada. 4. Go'aami problemka dhabta ah. Haddii aanad sidii hore u samayn, dhageyso sheekada labada dhinac. Tani waxay ku lug yeelan kartaa la kulanka shaqaalaha si gaar ah ama si wadajir ah labada qof ay ka dhaxayso khilaafka. Ugu dambeyntii, adiga maareeya ahaan ayay kugu xiran tahay inaad baarto darnaanta arrinta oo aad go'aamiso habka ugu fiican. 5. Aqoonso xalka marka xigta. Waxaad u baahan tahay inaad aqoonsato xalka. Ku dhiirigeli dhammaan dhinacyada inay maskaxda ku hayaan xal waliba oo suurtagalka ah ee lagu xalin karo arrintaas, waana inay aqbalaan xalkaas. 6. U ogolow shaqaaluhu inay muujiyaan dareenkooda. 7. Tixgeli kala duwanaanshiyaha aragtida labada qof. fadlan channelka haddii aad ku cusub tahay subscribe sar si ay kuu soo gaaraan muuqaalka xiga insha Allah. Halkaas waxaa noogu soo gaboobay hababka iyo qaababka aad u xalin lahayd isku dhaca shaqaalaha ka dhex dhasha. Mahadsanid.